videogan wuxuu ku saabsan yahay sida loo isticmaalo ama siyaabaha kala duwan ee loo isticmaalo qaacidada flash fill ee barnaamijka MS Excel. haddii aad rabto in aad videoga tallaabo ula socoto oo aad waxa videogu tilmaamaya aad sameyso, videoga hoostiisa ayaa waxaad kala degi kartaa faylka cashirka aan isticmaalay si aad ula socoto. Bismillahirrahmanirrahiim. waa mar kale iyo video kale oo ku saabsan isticmaalka barnaamijka Excel oo aan ku qaadaa dhigi doono sida loo isticmaalo qaacidada loo yaqaano flash fill. waxaan haysanaa xog ka kooban ID, code iyo amount. koodka qaabku uu qoran yahay waxaana la yiri waxa weeyaan code format, department, class iyo account. waxa halkan ku qoran ee koodka wada lambaro, laakiin waxa la lambarka koowaad wuxuu matalayaa department ma waaxda, lambarka xigana wuxuu matalayaa class ma fasalka, lambarka u dambeeyana wuxuu matalayaa account oo ah account-kii. marka lambarkan koodka ah yaa waxaana laga rabaa inaan ka soo soocno ama ka soo saarno department, class iyo account. ilaan saddexdaas ayuu ka koobnaay. halka midigta marka waad u jeedaa waxaa su'aal inoo saaran department oo kaligeeda la rabaa lambarka department inaan halkan ku qorno, kan classka inaan halkan ku qorno, account-kana halkan ku qorno. intana iyadana waxaa inoo saaran calaamatul su'aal ID numeric ah. ID-ga waxaad arkaysaa wuxuu ka kooban yahay xaraf T iyo lambaro, laakiin anaga waxaana laga rabaa oo kaliya numeric, waxa lambarka oo kaliya T-daas inaan ka tagno oo lambarka kaliya halka aan ku soo shubnaana laga rabaa. marka waxaasoo idil waxaa kaa caawinayso flash fill qaacidada loo yaqaano. marka waxaan ku bilaabeynaa halkan department-ka ku bilaabeynaa. flash fill-ka waa qaacido aad marka hore siinayso tusaale oo qaad siinaysa oo example aad siinaysa ama lead aad siinaysa. then waxaad isku dayaysaa inay fahanto pattern meeshaad u socotay waxa aad rabto inay fahanto isku dayaysaa, kadib aad iyada active ay noqonaysaa. iyadoo sidan oo cidlood waxba aadan lead aad siinin ma activate gareyn karto. ila soco marka waxaan bilaabeynaa department inaan ka soo socno code-kan. kan ugu horeeyaan ka bilaabeynaa. kan ugu horeeya waxa waaye 201 10 qaabkaas uu kala qoran yahay. so department-ka maxaa matalayo 201 ka matalayo. so waxaan sameynayaa taas si toosan u qoraya. waxaan leeyahay 201 qaabkaasaan u qoraya. intaan leeyahay macnaha kaas hadda aan qoray waa tusaalo. flash fill-aan barayaa. flash fill-aan rabaa inay wax ka fahanto buttonka waxa aan rabo inay fahanto. marka kadib waxaan tegayaa flash fill oo data baan tuujinayaa halka data qaybta sare, kadibna flash fill oo halkana ayaan tuujinayaa. dhag eeg marka meesha waxaa ku soo taxmay lambarada meesha ku soo taxmay. marka haddii aad eegto bal xaqiiji 201 maxaa ku xigo, 101 ayaa ku xigto, kan kale 300 waa wada sax. dhammaan lambaradii u horeeyay koodka ee inoo matalaya department halka ku soo shubay. kadib haddana galaaskii aan imaanaya. galaaska sidoo kale sadarka koowaad galaaska waxaa matalaya 10 kaasaan qoraya. kadib intaan leeyahay flash fill-aan tuujinaya iyadana. sidoo kale waad arkaysaa dhammaan lambarada xigiga meesha ku soo qoray. account maxaa inoo matalayo sadarka koowaad 90 inoo matalayo 90 qor. kadib inta dheh flash fill tuuj eeg inoo soo wada saar. kadib haddana numeric inta imaaw lambarka u horeeya ee ID-ga ah waxaa waaye T2232. so 22 ga bas aan qoraya 32 ga labadaas numeric bas aan laga rabaa. waxaan numeric aan ka tagaynaa marka intaan leeyahay, kadibna waxaan leeyahay okay. eeg marka flash fill shaqada ku fududeeya. okay qaabka kale oo flash fill loo isticmaali karo ayaan haddana u gudbaynaa. eeg halkan waxaa inoogu qoran split the full name column into two. magacyo halkan inoogu qoran, laakiin waa magaca koowaad magaca labaad. so full name marka magacyadaan rabnaa inaan u kala socono magaca koowaad iyo magaca labaad. badanaa markay magacyada sidan u qoran yihiin, magaca u horeeyo had iyo jeer waa magaca awowgaaga ama family name kala dhaho ama aabaha aabihiis. so waxaan sameynaynaa eeg marka first name ku bilaabaya. first name wuxuu noqonayaa lambarka labaad. marka magaca labaadan ka wada ayuu noqonayaa. so hadda kan oo kale Stevens wuxuu noqonayaa last, Masina wuxuu noqonayaa first. so qaabkaas rabaa inaan kala sooco oo labada line labada saf aan ku kala sooco. flash fill isticmaalaya wax weyn ma halkan ay imaanaya first name Masi waa qoraya. eeg aadan qoraya sida u qor Marcy then enter leeyahay. kadib waxaan tagay flash fill keegi bal eeg bal inuu qabanayo dhab waa ka kulli uu soo taxay magacyada labaad. laba magac ka sameysnaayeen magacyada labaad soo halka ku soo. kan kale imo first name Stevens okay de kadibna flash fill dhag that's it. sidaasaan kala soconaa labada magac marka waa ka. so we have the first name and then the last name. haddii aad rabtid inaad isku keento oo sida qaabka hadda ay u qoriyeen oo kale inaad ku soo celiso, barayaa Stevens, Marcy inta leeyahay. fiiriyo inuu qabanayo inuu flash fill fahmayo inuu isku keenayo labada magac. eeg waxaas dhammaan sidoo kale uu soo qoray halkooda kugu soo celiyay.
هي exercise كنا سمينا exercise كان وحويان combine the street city state and zip columns وحارمنا أن نسكو قبلنا أو هل qoraal aan ka dhigno street key oo kana city key oo halkaas state key oo halkan ayagoo fulina ku wada qoran soo qaabka tiida ma isticmaalo wax weyn ma halkan qalab saaranaya waxaan leeyahay 1902 toosan u qoraya macnaha Eden waa taa horeysa mubta drive street magaciisa waa command dhahaya Arlington waa city key command leeyahay state kana waa VA okay so okay aan leeyahay kadib waxaan tagay Flashville imagine everything waa qaabkaas soo keenay marka is it good qaabka afraad aan u isticmaali karno eeg waxa inoo qoran halkan use Flashville with date sida macnaha falo waxa meesha inoo yaal waa taariikh so extract day ana la provide multiple tables iga marka qaabka hadda qoranta date-ka hadda fiiriso tusaale mid u hooseysan kugu fahansiinay waxa way 6:29 so waxay u qoran tahay waxa soo horeyso bisha waxa xigto muxuu ahaa taariikhda maalintaas qaabkaas ay u qoran so bal aan fiirino Flashville in deedka noocan oo kale ma taariikhaha noocan oo kale ayagana sidoo kale loogu kala sooci karo sidaan ku aragnay qaybihii hore muxuu tusaalooyinka hore halkan aan imaanay ando waxaan rabaa taariikhda maalintaas aan rabaa inaan soo so maadaama halkan ay hal ay tahay bisha koowaad koodeeda ay tahay in halkaas ay qorto aan fiiriyo markii inuu Flashville fahmayo hal mar Flashville ku dhufanaya dhag ayaan ka siinaya markaan dhag siiyo eeg wuxuu soo saarayo waxaad moodaa inuu u fahmay inaan rabo bilaha laakiin anigu bilaha ma rabay taariikhda raba markay sidaas oo kale dhacdo undo aan dhahayaa markay sidaas oo kale dhacdo waxaan rabaa tusaale kale inaad siiso Flashville suu ku sii fahmo exactly waxa aad rabto suu ku fahmo so waxaan aadaa number 2 taas waan ka soo gudbay ogta tan labaad aadaa tan labaad taariikhda maalinta waa 2 taasan taabanaya iyadana ku daraa inta leeyahay labada tusaale haddaan sii weynay fahantaa Flashville haddaan tuujinayaa eeg marka diyaar waa eeg oo noo soo soocay dhammaan taariikhda maalintaas qaabkaas oo kala soocan kartaa videoga like inoo saar iskana diiwaangeli channelkeena YouTube-ka Hankab eHub sidoo kale booqo website-keena www.hankab.com oo ah barta aan ku bixino koorsooyin kala duwan oo laga yaabo inay ku cajabiyaan. Assalaamu calaykum.